عليكم السلام. Blue Makeup Samsung. So do Instagram live. سبحان الله ديجي سوبر شنتي سؤالود ee uu weydiin jiray fanaaniinta haatan waxa ay ka galeen meelo luuqluuqa ama meelo aad iyo aad u xun dj suber waxa uu mowduuca waraysigiisa ku soo qaatay Fuad Blue Makeup gabi ahaanba Soomaalidu waxa ay u taqaanaan ninka qaniis kaas oo bedelay ama dooriyay xubintiisii taranka ee raganimo iyadoo ku bedeshay ama uu iska dhigay dumar taas oo aan diinta islaamka gabi ahaanba muslimnimadiisa oo meel kaga dhacay Fuad Blue Makeup waxa uu la soo istaagay xaqiiqatan bartiisa Facebook ama social media kale inuu markiisa hore ahaanin kadib uu bedelay ama uu dooriyay xubintiisii taranka ee ninnimo aynu mowduucana kan kaga bogan doonaa waxyaabaha ay leefta isku dhaafsadeen iyo gabi ahaanba sidii ay u wada sheekaysanayeen balse daawadayaal intaynaan mowduucana u guda galin waxaan si xushmad leh kaaga codsanaya inaad channelka kan subscribe saarto sidoo kale videogana aad like gareyso muuqaalka kana aad si share gareyso haddii aad hayso qiso dhacdooyin iyo waxyaabaha la halmaala waxaanu ka baahin doonaa bartayada YouTube ee Mera Films fadlan nala wadaag qiso dhacda ama xaqiiqooyinka ku salaysan waa ka lambarku shaashada idinka muuqda Ramadaan Kariim meel kastoo ay idin joogtaan saaxiibada ku xiran channelka Mera Films يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب كسو دو هوتا لمبر 1 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma Blue Makeup baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa Blue Makeup Fuad baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa Samsung والله هرمر عاود بالحقيقة قال يقول لنا موالن تاعي دقال ما واي سمسم يس كسو دو والله ان انستغرام لايف كا من رمضان مبارك ayaan ka bilaabana رمضان مبارك ابو رمضان مبارك waan ka bilaabana shanteeda su'aalood ma daawatay wiliga anoo asxaabta ka qaaday ما والله هذا سفارة اللي قصنا يسوي واسبيار واي شنت سؤالات wax faniyo asxaabteena waan ka wada qaado abwaaniin fanaaniin suxufiyiin everybody and shanta su'aalood marka waa shan su'aalood oo normal afar normal iyo mid aan always aan ku adkeeyo inkastoo matan hadda igala wareegay inta barnaamijka igala jira dagaal way inta kala hal magacaago saddexan hadda Samson iyo magaalada baan nagala soo hadlaysaa horta horta fiilan kala soo hadla magacaygu waxa waay Samson Raage isla quman badani waxa uu yaqaanaa Fuad Blue Makeup balse marka uu jirkiisa dooriyay ama xubintiisii dumar raganimeenta uu dooriyay dumarnimo ka doortay magaca uu la baxay waa Samson Raage isla quman sidaas ula socda saaxiibayaal cajiib daawadayaal dj suber runtii waxa uu ahaa dadka fanaaniinta shanta su'aalood ku garaaca balse xaqiiqatan waxa ay ka gashay waqti xaadirkan meelo luuqluuqyo ah ama meelayo aad iyo aad u adag daawadayaal mawduuceena bal haddaynu hore ugu soconne bal idinkuna sii daawada way magaalada Finland reer Finland oo dhan waan salaamay reer Helsinki waan salaamay kuwa reer Turkona waan salaamay Espor حافظ وياه يس واي ان غورما سامسونج نقطي dadka hadda inta gadaal de aan kala socon Instagram ka ama Facebook والله waxaan dhihi lahaa laba sano kahor aan transition ka bilaabay waay maxaa kugu adkaa oo transaction ka ama dhanka bulshada hadday noqoto ama yourself personally guy والله وحساس يقعد كامل شيرين هرتا الحمد لله كل سوني ذي فرحة ذي لا يبلتك because مركي كو محلها إيشك أو عن سومالي social media سوكلايب of course تكو حيقو برتن فيديال أو قصل أو قراحة أو viral عن كل نقضي so ما دام اللي بيبتشر نفلي كان ديتشر أو نمي أنا نفتا إيتمت so دختر كم كان لكل ما الله الله أسبرني and ليش جاي نعبد مركينا أبدنا هلا انت كم قناه اسكن واي ان سؤال اللي بعدنا وحوي for how long هذا ما 2 years كان ده 2 years yes 2 years reaction كيف كانوا كلانتي الى مركي في صومالي بكو هدلسا صومالي واتاي
dadkii way ku yaqaanaan reactionka Soomaalida kala timid tadiiniyana waan u soo noqonayaa horta wax diiniyan ma ka jawaab because wax kasta oo diiniyan ani ilaahay noo dhaxaysa laakiin ta Soomaali ah يعني عادي يحوغا وحي أغير because maadaama adin ay gabdhaha u batay xoogaa waxay noqotay sheekadii in mafaahanta lii fahmo qof dumar ina ahay so xoogaa sheekada way degday caadi oo waxaa degay dhankii hayriska ama dadkii way وانا رون waa ku saxsantahay diiniyan anu diiniyan personally waa sheegtay waa between you and God and totally agree and ta kale aan ku weydiinayna what's your hobby maxaa jeceshay hobbigaaga wallahi hobbigayga horta aad waxaan u jeclahay markii oo especially hada karantiga waxyaalo badan wuxuu qof mar gurigiisa joogo maxaa yani waa inaad ka fikirtaa maxaa jeceshay aad waxaan u jeclaa paintingka I paint a lot I'm like very good painting I'm an artist ana is sawiraha halkaas ka qaado mana la qaybsanaysaa yes of course let's go sorry meeshan karantiga nololkeeda dambaysan kale karantiga aan ku qeylin sawirkan iska sawiray I'm a very good artist wow waxaa la moodaa inaad photography that's so perfect wallahi masha Allah lakin that's your hobby marka painting yes guys my hobby marka yara ilaa like iskoolkii kama hadeen jir badan I was not good in school because inta macamada hadlay sawirada ku jiray I was that one like qof markino wax iska sawiraa saddex buug ay taalo xasuus 16 jirkayga ilaa hadda oo sawiraad yes professional kaga oo shaqaad maanta maxaa la 9 to 5 work ama running own business no one ogahay waan la socdaa taasina sameeyay thank you yeah hadda horta ku artsaligu ogaa hadda waxa u gudbay acting I do acting and showyaal badan aan sameeyaa in Finland so hadda waxa u gudbay dhinaca front of camera I was behind the camera makeup artist dad badan xiriir badan mogtaa wax kasta waxay kaaga baahan yihiin xiriir dad baratid marka dad baratid aad ku socon kartaa so hadda waxa sameeyaa acting I'm an actor in Finland now way aad ayaan horta kaaga mahad celinayaa inaad sida daacadnimada nooga jawaabtay su'aalahayga aan hayay Instagram-ka originalkuna waa kan meesha korka xaggaas Ramadan Mubarak nade Ramadan Mubarak aad u mahadsantahay adaa mudan thank you so much and next Assalamu alaikum wassalam blue makeup Samsung so dhawo Instagram live kusoo dhawo horta number 1 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma blue makeup baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa blue makeup baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa Samsung wala hormar aawid bil xaqiiqada igu celinay moolan tahay dagaal ma way Samsung yes kusoo dhawo walaalo Instagram live-ka Ramadan Mubarak ayaan ka bilaabanaa Ramadan Mubarak waan ka bilaabanaa shanteeda su'aalood ma daawatay wiliga anoo asxaabta ka qaaday may wallahi hadda safana dhegeysanayso waa isbiyaar way shanta su'aalood waa wax faniyo asxaabteena waan ka wada qaado abwaaniin fanaaniin suxufiyiin everybody shanta su'aalood marka waa shan su'aalood oo afar normala iyo mid aan always aan ku adkeeyo inkastoo matan hadda igala wareegay inta barnaamijka igala jira dagaal inta kala hal magacaago saddexan hadda Samson iyo magaaladaba nagala soo hadlaysaa horta fiilan kala soo hadla magacayga waxa waaye Samson Raage isla quman magaca way magaalada Finland reer Finland oo dhan waan salaamay reer Helsinki waan salaamay kuwa reer Turkona waan salaamay Espo xafud weeye yes way goorma Samsung noqotay dadka hadda inta gadaalde aan kala socon Instagram-ka ama Facebook-ka wallahi waxaan dhihi lahaa 2 sano ka hor aan transition-ka bilaabay way
maxaa kugu adkaa oo transactionka ama dhanka bulshada hadday noqoto ama yourself personally walaa wax saas igu adkaa ma jirin horta alxamdulilah kalsoonideedii farxadeeda la ii badatay because markii kow maxaan dhahaa ii sheeg oo aan Somali social media soo galay of course dadku waxay ugu barteen videoyaal oo qosol oo qaraaxa ah oo viral aan ku noqday so maadaama lidhibi jiro naf lii kan dhihi jiro oo nimiya naagme nafta ay timid so dhakhtarka markaa la kulmo la hadlo as baranay and lii sheegay dhinaca dumarka inaan u badanaha le inta iga maqnada isku way and su'aasha labaadna waxa weeye for how long hadda waa 2 years kan aad 2 years yes 2 years reaction keba kala kulantay ilan markii af Soomaali waa ku hadlaysaa Soomaali waa tahay dadku way ku yaqaanaan reactionka Soomaalida kala timid tadiiniyana waan u soo noqonayaa horta wax diiniyan ma ka jawaab because wax kasta oo diiniyan ani ilaahay noo dhaxaysa laakiin ta Soomaali ah يعني عادي يحوغا وحي اغيراد because maadaama dhinaca gabdhaha u batay xoogaa waxay noqotay sheekadii in mafaahanta li fahmo qof dumar ina ahay so xoogaa sheekada way degday عادي oo waxa degay dhankii hayriska ama dadkii way waa ku saxsantahay diiniyan anu diiniyan personally waa sheegtay waa between you and God and totally agree and takale aan ku weydiinayna what's your hobby maxaa jeceshay hobbigaaga wallahi hobbigayga horta aad waxaan u jeclahay markii oo especially hadda quarantine waxyaalo badan wuxuu qof mar gurigiisa joogo maxaa yani waa inaad ka fikirtaa maxaa jeceshay aad waxaan u jeclaa paintingka I paint a lot I'm like very good painting I'm an artist ana is sawiraha halkaas mana la qaybsanaysaa yes of course let's go أنا ماليني داود يلنا إذا كبوغتين موضوعه حقيقة وحا وكاغا ورمايا فؤاد بلو ميك اب waxyaabaha ku kalifay sidan iyo waqtiyadiisa hore sidoo ahaa isagoo aanu hadalka DJ Super kala xishoonaynin balse xaqiiqatan runtii waxa uu DJ Super markiisa hore oo ahaanin isagoo uu dooriyo xubintiisa taranka kadib uu doortay ama uu doorbiday inuu gabi ahaanba iska dhigo dumar iyadoo uu xubintiisa tarannimo jaray ama ka saaray halkii ay ku fadhiday oo kadib doortay waxyaabo kale subxaanallah ilaahay waxaanu ka baryeynaa inuu soo hadeeyo isaga iyo qaar kale oo badanba ma aha keligii balse waxay ahaayeen dadyo aad iyo aad u fara badan mid kale oo dhintay xataa waan maqlayay oo muuqaaladiisa aniga laftarkaygu waan baahiyay inkastoo uu gadaal ka soo hadlay subxaanallah alla dilaya baa dhintay balse tantii saaxiibayaal kamid ahaanshaha iyo ku soo biiritaanka channelkeena Mero Films haddii aad ku cusub tahay waxaan rajaynayaa inaad dabcan subscribe saartay dhammaanteen xanuunadana adduunyada saameeyay Allah subxaanahu wa ta'ala waxaaynu ka baryeynaa inuu inaga amaansado gabi ahaantiisaba oo inaga hayo awood ma lihin haddii laynoo eego Soomaali ahaane dad yowgii adduunka ee ku taamayay awoodda caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee ay soo saaraan runtii waxa ay noqdeen waxoodii colbiya dhaanshay xanuun yar oo ilma aragtay ayaa ka awood batay Allahna subxaanahu wa ta'ala waxaaynu ka baryeynaa inuu inagana inaga qabto inagu kolley waxaaynu nahay dad aan awood mid toona lahayn aan Allah subxaanahu wa ta'ala lahayn Allah subxaanahu wa ta'ala la mooyee saaxiibayaal ku maasantihiin kamid ahaanshaha ku soo biiritaanka mawduuca halkaas uu inoogu joogaa fiidiyoga ka inoo xigayno balana aad baan idin salaamaya meel kastoo ay idin joogtaan يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب